بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وناكسن صاحبيال من البدافع عالم كجوجتان وقت كستو يدين تايا وناكسن. أنا وحنا يوسف محمد يوسف حيبرو صاحبada igu xiran iyo saaxiibada ku xiran channelka Bilkhayr Ahmed waan u mahad celinaya. Hadda halka aad iga daawanaysaa waa channelka Bilkhayr Ahmed. Soo dhawaadaan leeyahay saaxiibayaal meel walba joogtaan. Mawduuceena maanta waxa uu ku saabsan yahay sidii aad ka soo aragteen title-ka muuqaalka ku qoran. Waxaan rajaynayaa inaad wada fahanteen qorshaha iyo maanta mawduuca aynu ka hadli doono. Marka hore waxaan idinka codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe saar muuqaalka like gare u share gare asxaabtaada. Saaxiibada hore la joogay waan u mahad celinayaa. kun jeer ayaan leeyahay waa mahadsantihiin. saaxiibada cusubna waxaan leeyahay ku soo dhawaada qalbi furan barnaamijyo tayo leh oo halkan idinka soo gudbino haddii Allah wada raali ka noqdo. waxaan rajaynayaa qof walba oo daawanaya inuu caafimaad qabo inta aan runtii hadda xanuunsanay aan caafimaadka haysan waxaan Ilaahay weydiinaynaa caafimaad qaban Ilaahay weydiinaynaa inta aan nabadgelyada haysan Ilaahay waxaan u weydiinaynaa nabadgelyo inta nabadgelyada haystana waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inuu Ilaahay u sii ballaariyo nabadgelyadaas. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale waxaan rajaynayaa inaan muuqaalka guda galno haddii Allah wada loo raali ka noqdo sidii aad title-ka ku soo aragteen dabcan waxaan rajaynayaa talo ma soo noqon doonaa barnaamijkii tartanka hibada qofka oo aan hore runtii aad ula socon jirteen sanado kala duwan oo barnaamijkaas aan soo qabanay. waxaan rajaynayaa oo hadda isweydiinaynaa talo dib ma u bilaabi doonaa ama dib ma u bilaabi doonaa barnaamijkii hibada qofka ama tartanka hibada qofka. sidaynu ognahay dalkeena Soomaaliya waxa jira hiboolayaal aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo laakiin aan haysan fursadii ay wax ku soo bandhigi lahaayeen haddii ay noqoto mid dawladeed iyo mid ay dadka gaarka ah runtii warbaahinta u leeyahay soo gudbiyaan dadka ama fursad u siiyaan fursadaas ka faa'iideystaan. anagoo taa ka duulayna waxaan aad u jecel lahay mar walba inaanu fursad siino qof walba oo hibo leh oo ku nool dalkan oo jecel inuu marun hibadiisa ku soo bandhigo barnaamijyada halkan aanu ku qabanno. waxaan rajaynayaa oo hadda su'aashu tahay talo ma soo noqon doonaa barnaamijkii uu soo noqon doonaa haddii Allah wada raali noqdo waxaan noogu qaban doonaa si ka duwan sidii aanu berigii hore u qaban jirnay. waxaa la socotaan oo ogtihiin in teknolojiyadu maalinba maalinta ka dambaysa ay ku imanayaan isbedel sidii aan hore ugu qaban jirnay waqti bay ahayd oo dabcan qaabkii aan u duubi jirnay qaabkii loo qaban jiray fursadda xilliga abuuraysa laakiin idinkoo og in maalinba maalinta ka dambaysa ay teknolojiyadu wax iska bedelayso oo marba ay heer joogto waxaan rajaynaynaa inaanu doorkan ama sanadkan aanu u qabanno si ka duwan sanadii hore sidaan u qaban jirnay. waana fursad muhiim ah oo marba ku jahaynaysa dhinaca hadba teknolojiyadu u socoto sababtaa waxaa dhici karta in ay ka qayb galaan xataa dadaan joogin dalkan Soomaaliya oo jooga daafaha caalamka guud ahaan dadka Soomaaliyeed. waxaan xasuustaa waqtigii aan barnaamijyada qaban jirnay inay dadku ay weydiin jireen iyagoo meelo fog jooga inaanay barnaamijka ka qayb gali karaan iyo inaanay ka qayb gali karin balse waxaan rajaynaynaa hadda inaanu suurto gelino haddii uu Allah wada raali ka noqdo inaanu barnaamijkii dadkaas u suurto gelinay inay ka soo qayb galaan. fursado iyo waxa jira shuruudo qofku maadaama banaan ku maqan yahay oo joogin halkaan anagu ku sugannahay shuruudo ka duwan shuruudaha uu marayo qofka wadankan jooga ee barnaamijka sida tooska uga soo qayb galaya ama platformka soo fuulaya stage-ka imanaya qofka banaanka ku maqan ama meel kale jooga wuxuu mari doonaa shuruudo ka duwan shuruudahaas si loo ilaaliyo maadaama wuxuu tartan yahay competition yahay si uu tartankeenu noqdo mid cadaaliya oo aanu qofkaasi wadooyin aan loo baahnayn aanu u marin ayaan rajaynaynaa inuu shuruudaha qofkaasi noqdo shuruudo ka duwan shuruudaha qofka halkan jooga uu marayo. marka dabcan qofku markuu barnaamijka la soo xidhiidho waanu shaacin doonaa telefoonaan ku qori doonaa iyo WhatsApp lagala soo xidhiidho barnaamijka markaasaa qofka wax loo sheegayaa dibadda ku maqan shuruudaha. runtii waana barnaamij runtii aad u adag oo u baahan inaad waqti badan iyo dhaqaale geliso haddana sidaasay tahay maalinba meel baa la joogaa. waxaan rajaynayaa in maalinba halkii aan joognay intaanu ka dhaqaaqno meel ka sii duwan meeshii hore inaanu sii tagno haddii Allah wada liidmo. way jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo jecel inay dhiirigeliyaan barnaamijyada noocaas oo kale ah ama fursad u siiya dhalinyarada Soomaaliyeed cid walba oo abuuraysa inay taageeraan oo gacan qabtaan dadkaana waanu mahad celinaynaa. way jiraan dad badan oo inta badan la soo xidhiiri jiray oo jecel barnaamijyada ugu yaraan xataa haddaan dhaqaale ku bixinin waxay taageerayaan in fursadaas la abuuro oo dhalinyaradu fursad ah hesho. dadkaasina runtii waa dad jecel horumarkaas dhalinyaradu sameynayso walow qof walba oo dalkeena ku nool waxa hamigiisa haddaanu fursad u helinin fursaduna waa laba waa in ama dadku ay abuuraan ama dawladdu abuurto. marka haddii dad Soomaaliyeed oo isabaabulay oo iyagu tashtay oo fikir iyo aqal isu geeyay hadda iyagu sameeyaanna waa fursad aad u wanaagsan
haddii dowladnimadu samayso oo dowladdu samayso tusaale ahaan sida wasaaradda warfinta oo kale hadday samaysana iyaduna waa wax aad u wanaagsan. hadda maanta fursad waxaan haysanaa tiyaatarka qaranka oo dhisan oo shaqaynaya, iyadoo qudheedana waa fursad kale oo u abuuri karta dhalinyarada hal abuurka leh ee hibada leh ee ku nool Soomaaliya oo dhan meel walba joogaan. ugu yaraan xataa dadku inay gobolada ka yimaadaan oo la isu keeno. laakiin anagu markii hore awooddeedu waxay ahayd inaanu magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda dadka ku nool ee tartankaas danaynaya ama hibada leh inaanu fursadda u abuurno. dabcan horena waa ugu soo abuurnay, way dhacday marar badan saa hore u aragteen. fursaddaasna dhalinyarana waa ka faa'iidaysatay, dhalinyarana runtii sidii loo baahnaa ugumaysan faa'iidaysanin. waanu mahad celinayaa, halkan baanaan aada uga salaamayaa dhalinyaradii aanu tartamadii kala duwanaa ee Muqdisho ka dhacay sanadii 19 20 iyo 22 aan runtii halkan baan aada uga salaamayaa. waana u mahad celinayaa, runtii dadaal badan bay sameeyeen oo runtii fursaddii kusoo bilaabmay tartanka markii dambena inay fankoodii iyo hawlahoodii hore usii mariyeen oo sii wadeen ayaan runtii aada ugu ammaanayaa. sidaa darteed waxaan rajaynaynaa insha allah biidnillahi alkariim qof walba oo barnaamijkaas runtii fikir wanaagsan oo aan ku dari karno haya wuxuu nagula soo wadaagi karaa qaybta committee-ga oo runtii waanu tixgelin doonaa committee-yada aad noo soo qortaan si aanu runtii barnaamijka ugu dabaqno. waxaa jira dad fikrada aan anagu hayno fikirro ka wanaagsan oo runtii waxgal ah haya, marka waxaan ka codsanaa qof walba oo barnaamijkan daawada oo uu soo gaadho inuu fikirkiisa nagula wadaago qaybta fariin qoraalka ee committee-ga si aanu halkaas wax badan nooga soo kordhaan oo aanu aragno. insha allah waxaan rajayn doonaa qofka ugu fikirka wanaagsan inaanu fikradihiisa barnaamijka ku xusno, maxaan ku dhahdaye una mahad celino oo aanu halkan muuqaal kula wadaagno insha allah biidnillahi alkariim. sidoo kale waxaan rajaynayaa qof walba oo danaynaya barnaamijka inuu ka qayb galo waa inuu fursaddaas ka faa'iidaysto. sidii hore barnaamijku ahaa inuu qofku isagoo soconayo ama xarunta yimaado ama uu tartanka galo uu ka duwanaanaya shuruudo ka duwan shuruudihii markii hore aanu tartanka ku qaban jirnay ayaa hadda tartanka lagu qabanaya. ka hor intaasoon qofku imaanin oo la diiwaan gelinin xarunta iman baa loo sheegaya shuruudaha qofku haddii uu buuxiyo ka hor intaanu barnaamijka gelin ayuu qofku barnaamijka gelaya. sidaan hore idinku soo sheegay, dadka meelaha aan ahayn xarunta barnaamijka ka dhacaya jooga waxay uga qayb qaadan doonaan aaladda escape-ka, laakiin shuruud baa jirta oo aan idiin sheegay. dadkaasaan la wadaagi doonaa shuruudahaasaan qofkii buuxiya oo ku qanca ayaa tartanka qayb geli doona haddii alla awoodda la idmo. aad baan u mahadsan tihiin dadka Soomaaliyeed igu xiran, sidoo kale channelka hadda iga daawanayaan Bilkhayr Axmed ku xiran, sidoo kale saaxiibka Yaxya Nuur Muumin oo isaguna runtii qayb muhiim ka noqon doona barnaamijka aanu hadda soo wadno, isagana aad baan ugu mahad celinayaa. isla abuurista fursaduhu waxay abuuraan wax wada qabsi joogto ah. fikirku inuu qof ka yimaado, laba ka yimaado, saddex ka yimaado wuxuu macno weyn ku sameeyaa markay dadka oo dhami isla qaadaan fikirka. laakiin haddii fikirka qof keeno oo cidila qaadi weydo oo uu socon waayo macno ma samaynayo. marka isla jiidistu iyo isla qaadista fikirku macno weyn bay abuurtaa. ujeeddada ugu weyn ee barnaamijka aan ka leenahay runtii ma aha inaan anaga ama magac aan ka helayno, laakiin ujeedku waxa weeye inaanu fursaddii aanu soo marnay waqtigii aanu fanka soo gelaynay aadka u adkayd. inkastoo anigu aan ka mid ahaa dadkii ugu nasiibka wanaagsanaa oon tartanka soo galay magaalada Hargeysa, telefishinka Home Cable TV oo halkan aad uga salaamay u mahad celinayo howlwadanadii xilliga Nuuca Samriye walaashay ay ka tahay, sidoo kale mulkiilihii TV-ga Farxaan maxamed cabdiili oo hadda MMTV oo waqtigaas isaguna Home Cable TV agaasimiheedii ahaa. fursadda xilliga noo abuureen fursad dahabi ahayd, ka hor lama heli karayn markii aanu Hargeysa joogno fanka soo galaynay, laakiin waxay fursad wanaagsan oo aanu waqtigii wixii anagu aanu rabnay aanu ka helay. sidaa darteed baan waxaan aniguna aad u jeclaysanayaa mar walba in wiil walba iyo gabadh walba oo dhalinyaro oon jecel lahay inay dhaqankooda iyo fankooda hibo u leh inay hibadaa fursad u helaan meeshii ay kusoo bandhigi lahaayeen. sababtay markaad fursad lagu abuuro wax badan oo maxaan ku dhahdaa kaa maqnaa markii hore baad si sahlan ku heli karaysaa. inaad meel timaado lagu tababaro, wixii kaa khaldan laguu sheego, hibadaadii lagula toostoosiyo oo lagula naashnaasho oo wixii kaa dhiban lagugu daro oo wax runtii aad iyo aad u weyn waana wax muhiima. sidoo kale barnaamijka sanadka waxaa qayb ka noqon doona qaraami oo qaraamigu maadaama uu yahay waxyaalihii fanka lagu soo bilaabay oo maxaan ku dhahdaayey halkii heesaaba laga soo bilaabay uu yahay
fursadna loogu abuuri jiray fanaaniintii Soomaaliyeed ee sida inagoo kale markay fanka soo galiyeen waxa ku soo gali jireen inay qofku tartan soo galo heesaha qaraamiga qayb kamid ah soo qaado la tijaabiyo dadka ka soo fanaan buu noqon jiray insha Allah barnaamijka waxaan qaybihiisa kala duwan kamid ah oo uu qofku tartamaya mari doona inuu heesaha qaraamiga oo dadka Soomaaliyeed qaraamiga waxa wada yaqaanaan heesaha kabanka lagu tumo laakiin ma aha heesaha qaraamiga heesaha aan la kala lahayn guud ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed wada leeyihiin heesaha qaraamiga qayb ka noqon doona hadii Allah uu daliidba waa mahadsantiin aad iyo aad baan idin salaamaya meel walba joogtaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir wixii barnaamijka ka soo kordhana waxaynu si joogtay halkan ugu wadaagi doonaa muuqaalo hadii Allah uu raali ka noqdo faahfaahintana gadaal baan runtii idin kala wadaagi doonaa insha Allah iyo meesha lambarada lagala soo xiriiriyay iyo sida barnaamijku ku bilaabmayo waa mahadsantiin Yuusuf Xaybran ahay waan salaamaya saaxiibkay Xaynuur Wamiir baan isagana u salaamaya muuqaalkan qurux badan noo duubaya nabadgelyo salaamu alayhi